Bisha August markasta waxaa maqashaa inay tahay mid ka mid ah bilaha ugu xun ee suuqana forex laga trade gareeyo haddii aad trader tahay marka la fiiriyo 12 bilood ee sanadka. Haddaba marna ma isweydiisay maxay tahay sababta mase kugu habboonta adiga inaad trade gareysid bishan ama inaad iska daysid. Muuqaalkana insha Allah uga jawaabi doonaa. Midda koowaad sababta waxay tahay sababo badan bay sheegaan laakiin midda ugu macquulsan waxay tahay dabcan bishan August waxay ka mid tahay bilaha summer time-ka sanadka ku jira ama xilliga xagaaga. Marka xilligaasna badanaa dadkan ee cadaanka waxa ay sameeyaan holidays bay sameeyaan ama fasaxyo galaan iyo dalxiisyo vacations bay sameeyaan. Marka bangiyada big boyska dadka suuqan drive gareeya oo lacaga ugu badan geliya yani xilliga waxay ku maqan yihiin mataqaanaa fasaxyo ku maqan yihiin iyo dalxiisyo darteed waa mid ka dhigaysa suuqa low volatile ka dhigaysa gaar ahaan dadka currencies-ka ku trade gareeya oo iminka hadda markaynu fiirino forex factory xitaa inagoo inaa meel kale aadin sorry waxaa weeye waxaa arki doontaa asbuuca soo socda bank holidays badan inay jiraan saa arkaysa hadda Monday-gaba JP Wide waa bank holiday haddii aad soo socotid still waa arki doontaa kuwo kale oo badan sida Italianka Frenchiga bangiyadooda sida arkaysa inay yihiin ayagana bank holiday inuu jiro soo arkaysa marka taaba waxay koos gareynaysaa waxa weeye in suuqu low volatile noqdo sidaa darteed arrintaas waxa u yara xun tahay dadka maaragtay trend traderska loo yaqaano ama scalpers-ka oo inagoo kala kuwaas oo suuqa trade-yada maaragtay short time haya oo tusaalaan 100 bibi wax ka yar ka raadiya mesela hadda 50 bibi oo kala raadinaysa suuqa marka 20 bibi dhaqaaqo uu iska soo laabana uu kugu soo noqon dharow dhan baa laga yaabaa inuu kugu sii qabto inuu ka soo saaro haddana uu kugu qabto yacni 20 bibi uu dhaqaaqo kugu soo laabto waa kada ma fahanti laakiin dadka maaragtay long time-ka trade-yada haya iyaga wax effect arrintaas kuma yeelan ma fahmaysaa marka taa waa mid weeye oo waa sababta koos garanaysa in lagu yiraahdo bishan maaragtay waa bil xun weeye aad dadka badanaa ka maqashid arrinta markaas la fahanay adiga ma kugu habboonta inaad bishan trade gareysid waxay ku xiran tahay modelkaaga iyo win rate-kiisa iyo bishaasi inaad backtesting ku sameysid horey modelkaaga ku trade gareynaysa ama systemkaaga sidee buu ahaa bishani ma garanaysaa marka haddii win rate-kiisa uu fiicnaa arrintaas waxay kugu dhiirigelinaya inaad bishan aad trade gareyn kartid haddii win rate-kiisa uu xumaa bishan ka nasa insha Allah tusaale ahaan hadda aniga waxaan backtesting ku sameynaya modelkan ORB model waa mid ka mid modeladan ku trade gareeyo runtii basiida aadna strong u ah ama win rate-kiisa uu xoogan yahay waxaa arkaysaa August 1 inay tahay halkan kasoo bilaabo Friday ilaa September 1 oo hadda joogno marka bishaasi waka sida arkaysaan maaragtay dhammaan trade-yada ay bixisay xaggan baynu marka si kooban ku arkaynaa oo summary 36 trade bay bixisay tirada numbersku inay badan yihiin baa laga yaabaa laakiin caadi ahaan ORB model qofka ku trade gareeya wuu garanay maalinkiiba 2 trade bay bixisaa NY session iyo maaragtay London session 36 ka mid ah win bay ahaayeen ilaahay waa maad iskale loskuna wuxuu ahaa 10 marka totalku waa 36 xagga win rate-ku marka uu noqonayo 72% runtii taas oo aad igu dhiirigelinaysa inaan bishan aad trade gareyn karo laba waxba maadaama modelkaygana uu aad u fiican yahay bishan August si lamid ah anigu gold ku trade gareey oo currencies-ka aan ku trade gareynin marka adigana sidaas si lamid ah waa sameyn doontaa insha Allah backtesting samee modelkaaga fiiri soo kale lacagaha ku trade gareysidna iyaduna waa ku sameyn doontaa ugu dambeyn waxaan xasuusinayaa qofkii doonaya inuu ka faa'iideysto inaa discounti 30% aan ku sameynay live trading kan sida daily u sameyno oo kaliya aan ku trade gareeyo lacagtaana gold isla markaasina aad ku yeeleysid full analyze from A to Z trade-ka markaan qaadanayno si lamid ah trade-ka si live ila qaadanaysid inta badanna 5 maalmood asbuuca ugu yaraan 4 maalmood oo kamid ah aan trade gareeyo haddii aad interest garanayso waxaa nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqanaya ama linkiga profile-ka ku xiran